event waa term kale oo aad loo isticmaalo probability. waxaad maqlaysaa event oo kale, event kada. marka event waxa weeyaan waa the set of outcomes of fiirso midkan waxa weeyaan waa the set of outcomes of a probability experiment. marka iyada iyo sample space ka soo khaldin. sample space ku waa all outcomes, event laakiin all outcomes maaha, waa some of the outcomes, ama wuxuu noqon karaaba hal outcome marmarka qaar. marka hadda haddii aan tuurno coin oo kale, throwing coinkii haddaan usoo laabano oo experimentigan aan samayno. marka waxaan haysanaa sample spaceku dabcan waxa weeyaan waa sidaad taqaaniin wuxuu ka kooban yahay waa head inay kuu soo baxdo ama tail inuu kuu soo baxo. marka head inuu kuu soo baxo waxaa la dhihi karaa waa event. tailna waxaa lagu tilmaami karaa event, oo waxaa lagu dhihi karaa what is the probability of getting head. marka getting head waxa weeyaan waa event, getting tailna waxa weeyaan event. marka event waxa weeyaan set of outcomes, waa hal outcome noqon karaa, laba outcome noqon karaa oo ku jiraan sample space-ka. macnaha waxa weeyaan an outcome oo lagu weydiinayo probability-giisa. for example hadda as a couple oo kale, a couple ama a family, waxaa lagu dhihi karaa a couple hadda what is the probability ayaa lagu dhihi karaa couple-ku inay dhalaan wiil, a family to have a boy kid. marka sample space-ka saas oo kalena waxa weeyaan waa naqanaa a family wuxuu lahaan karaa a boy oo b loo soo gaabinayo ama a girl babygooda. marka sample space-kooda waxa weeyaan waa a boy ama waa a girl. marka one event waxa weeyaan having a baby boy, another event waxay noqon kartaa a baby girl. marka event waxa weeyaan a set of outcome or sample or a set of outcomes in the sample space of a probability experiment. marka saas ula socda. marka event waxay u qaybsantaa laba nooc, simple event iyo compound event. marka simple event markii probability la joogo waxaa la dhihi karaa waxa weeye waa event oo haysata one outcome keliyata, one outcome bas haysata in the sample space. sample space-ka eventiga waxay ku leedahay hal outcome. compound event laakiinse waa event oo haysata has more than one outcome, waxay haysataa more than one outcome in the sample space-ka. marka tusaale haddaan idin siiyo ku saabsan simple event, marka waxay noqonaysaa hadda haddii aan ka hadalno throwing coinka markii la tuuro coinka markii la tuuro waxaan haysanaa sample space-kan. sample space-kiisa wuxuu ka kooban yahay head inuu ku soo baxo iyo inuu tail ku soo baxo, waa labada mid bisan haysanaa. coinka markaad tuurtid ama head ku soo baxay ama tail ku soo baxay. marka eventiga for example waxaan haysanaa on event getting head waa hal event, waana hal outcome ay leedahay sample space-ka. getting tail waa event kale, waana hal outcome ay ku leedahay sample space-ka. marka throwing a coin, getting ahead, hadda getting ahead waxa weeyaan waa simple event.
getting ahead waxa weeyaan waa simple event waayo waa event oo haysata kaliya one outcome oo head ah in the sample space ka. Getting 10 waa simple event waayo waxa weeye hal outcome ay ku haysata sample space kan. waxaa kaloo la mid ah مثلا daayiga markii aan tuurayno kale daayiga haddii aan tuurno daayiga wuxuu leeyahay sample space kan waa face-ka koobaad inuu ku soo baxo ama face-ka labaad ama face-ka saddexaad ama face-ka afraad ama face-ka shanaad ama face-ka 6 ay ku qoran tahay. sample space-kiisu waa tiradan laga bilaabo 1 ilaa laga gaarayo 6. marka getting face uu ku qoran yahay 1 waa simple event. getting face uu ku qoran yahay 1 markaad tuurtid daayiga inuu ku soo baxo face uu ku qoran yahay 1 waa simple event waayo hal outcome bes ayay leedahay. getting 2 na waxa weeyaan waa simple event. getting 2 waa simple event. marka haddii lagu weydiiyo number gaar ah inuu ku soo baxo markaad tuurtid daayiga waxa weeyaan waa simple event. laakiin haddii lagu weydiiyo getting odd number baalka markaad tuurtid getting odd number marka odd numberku wuxuu noqonayaa kuwan 1 3 5 soo maaragtiin. marka hadda eventigeenu waxa weeyaan dhowr outcome ay leedahay outcome oo 1 ah ama 3 ah ama 5 ah soo maaragtiin. marka waxay noqonaysaa compound event waa event oo haysata more than one outcome. marka marmarka qaarkood eventu waxa weeyaan waxay haysan kartaa one outcome sida midkan ama waxay haysan kartaa dhowr outcome sida midan hadda oo kale ah oo markii aad tuurtid daayiga eventiga inuu ku soo baxay odd number even number laftirkeed waxa weeyaan waa compound event waayo waxa weeyaan eventiga inuu ku soo baxay even number marka waxa weeyaan inuu 2 ku soo baxo ama ay 3 ku soo baxdo ama ay 6 ku soo baxdo. marka waa compound event waa event oo haysata more than one outcome. marka saasaad u kala qaadaysiin simple event iyo compound eventiga.